وقيبتني بوغا New Concept English Practice and Progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Sosman official channel. waxaan ku soo qaadanayaa cashir cusub buug cusub waa qaybteenii buugga New Concept English Practice and Progress. Passage 12 waa sheekadii 12aad. Goodbye and good luck baa cinwaan u ah. Goodbye and good luck. Nasiib wanaagsan iyo nabadgelyo. Our neighbor deriskanaga Captain Charles Allison ninka la yiraahdo will sail from Portsmouth tomorrow. Wuxuu ka shiraaca doonaa Portsmouth meesha la yiraahdo Brito Ingiriiska inay ku taalo Portsmouth. We shall meet him waxaynu kula kulmi doonaa isaga at the harbour dekada early aroor hore in the morning Brito subax. He will be waxa uu ku sugnaa doonaa ama ku jiri doonaa in his small boat doontiisa yarta topsail la yiraahdo magaceeda. Topsail is a famous little boat waa doon yar oo caan ah. It has sailed waxay ka shiraacatay across the Atlantic-kada many times ayay ku shiraacatay. Captain Allison ninka la yiraahdo will set out waxa uu bixi doonaa at 8 o'clock markii ay tahay 2 ama 8. We shall have waxaynu yeelan doonaa plenty of time waqti badan. We shall see waxaynu arki doonaa his boat doontiisa. And then kadib we shall say waxaynu ku dhihi doonaa goodbye to him nabadgelyo isaga. He will be away waxa uu maqnaa doonaa for 2 months 2 bilood. We are very proud of him aad ayaynu ugu faannaa isaga. He will take part wuxuu ka qaybgeli doonaa in an important race tartan muhiima across the Atlantic ka dhacayo Atlantic-kada. Passage 12 cashirkii 12aad ama sheekadii 12aad. Passage 12 sheekadii 12aad. Goodbye and good luck. Nabadgelyo iyo nasiib wanaagsan. Goodbye and good luck. Nasiib wanaagsan iyo macasalaamo. Our neighbor deriskanaga Captain Charles Allison ninka la yiraahdo will sail from Portsmouth tomorrow. Waxa uu ka shiraaca doonaa Portsmouth Brito. Portsmouth waa goob ama meel magaceeda ee Ingiriiska ku taalo sida Manchester meesha la dhaho Arsenal waxa uu badan yahay Portsmouth. We shall meet him waxaynu kula kulmi doonaa isaga the harbour dekada early in the morning Brito aroor hore. He will be in his small boat wuxuu ku jiri doonaa ama ku sugnaa doonaa doontiisa yar topsail la yiraahdo magaceeda. Topsail is a famous little boat waa doon yar oo caan ah. It has sailed across waxay ku shiraacatay the Atlantic-kada many times marar badan. Captain Allison will set out wuxuu bixi doonaa at 8 o'clock 2 ama 8. We shall have plenty of time waxaynu yeelan doonaa waqti badan. We shall see waxaynu arki doonaa his boat doontiisa. And then kadib we shall say waxaynu ku dhihi doonaa goodbye to him nabadgelyo isaga macasalaamo. He will be away wuxuu maqnaa doonaa for 2 months 2 bilood ayuu maqnaa doonaa. He will be away for 2 months 2 bilood ayuu maqnaa doonaa. We are very proud of him aad ayaynu ugu faannaa isaga. He will take part wuxuu ka qaybgeli doonaa in an important race tartan muhiima across the Atlantic oo Atlantic ka dhacay. Comprehension waa fahanka phrases dulucda kooban and composition iyo curiska. Answer ka jawaab these questions su'aalahan in not more than ana ka badnayn 45 words 45 eray. Whom shall we meet at yenu kula kulmi doonaa Portsmouth harbour dekada Portsmouth early tomorrow morning Brito subax aroortii. Where will he be xagee buu joogi doonaa isaga ama xagee buu ku sugnaado. Where will he be? At what time waqtigee will he leave ayuu bixi doonaa ama tegi doonaa.
Shall we say waxaynu ku dhihi doonaa goodbye to him isaga nabadgelyo, or shall we travel with him isaga ayaan la safri doonaa? What will he take part in? Muxuu ka qayb geli doonaa? What will he take part in? Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Passage 12. Goodbye and good luck. Our neighbor Captain Charles Allison will sail from Portsmouth tomorrow. We shall meet him at the harbor early in the morning. He will be in his small boat. He will be in his small boat. Topsail. Topsail is a famous little boat. It has sailed across the Atlantic many times. Captain Allison will set out at 8 o'clock. We shall have plenty of time. We shall see his boat, and then we shall say goodbye to him. He will be away for 2 months. We are very proud of him. He will take part in an important race across the Atlantic. Across the Atlantic. Comprehension, praises, and composition answer this question is not more than and couple than 45 words. Whom shall we meet at Portsmouth Harbor early tomorrow morning? Where will he be? At what time will he leave? Shall we say goodbye to him, or shall we travel with him? What will he take part in? Thanks. ألف لكن نبي ألف لوس نبي ألف لا قذي